magaalada Toronto ee dalkan Canada waxaa dhawaan lagu soo bandhigay buugga Keligaa ma tihid ama You are not alone oo ah buug loogu talagalay carruurta inay ka faa'iidaystaan kaasoo ka caawinaya arrimo badan oo ay ka mid yihiin ixtiraamka waalidka iyo dadka waaweyn, wax wada qabsiga, midnimada, barashada luqadda maadaama uu buugku ku qoran yahay af Soomaali iyo English. Sidoo kale buugga ayaa ah mid dhiirigelinaya carruurta si ay u tiigsadaan horumar la taaban karo. Qoraaga buugga Xabiibe Maxamed oo degan dalka Mareykanka ayaa waalidiinta magaalada Toronto u saxiixday buugga, kuwaasoo carruurta u hadiyeynaya buugga Keligaa ma tihid ama You are not alone ee dhiirigelinaya carruurta Soomaalida. Buugga Keligaa ma tihid ama You are not alone ayaa ka mid noqday buugga sanadka, iyadoo qoraaga buugga Xabiibe Maxamed ay midaasi ku mutaysatay abaalmarin kadib xaflad lagu qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Qoraaga buugga Keligaa ma tihid Xabiibe Maxamed oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey buugga iyo waxa uu ku saabsan yahay. buuggan wuxuu ku saabsan yahay magacayga ayaan kaaga bilaabaya. Magacayga waa Xabiibe Maxamed. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan jaanis u yeeshay inaan Toronto imaado oo la sheergareeyo buuggan dadweynaha ku nool Toronto. Buuggan laba luqadood baan ku qoray oo bilingual ah, Soomaali and English. micnaha ka dambeeyana waxay tahay waxaan rabaa qof walba Soomaali ah adduunka meel kasta uu ka joogo inay u fududaato inuu carruurtiisa u akhrin karo. midda kale buuggan wuxuu ilmaha ka caawinayaa iyo waalidiinta social emotional support, cognitive support iyo mentally. marka wax muhiimadda waxay tahay in waalidiintu ay jaanis u heli karaan kuwa aan aqoonin luqadda Englishka inay carruurtooda u akhrin karaan. kuwa Englishka yaqaana Soomaaliga ay ku adag tahayna fast forward midka kale inuu easy u noqdo inuu u akhrin karo ayay muhiimaddu tahay. waxa ka dambeeyay micnaheedu waxay tahay aniga background-kayga macallimad waaye, 20 sano macallimad ahay, early childhood baan la shaqeeyaa carruurta ah, special needs la shaqeeyaa hadeertaan. waxaan arkay in maaragtay classroom-yada aysan ku jirin buugaagna matalaya, maxaa yeelay buugaagta inta badan waxay yihiin English bay ku wada hadlaan laakiin picture xataa ma laha, qof xijaab saaran laguma arko. marka aniga muhiimadeedu waxay tahay in laga dhex arko culture-keena in classroom-yada ku soo daro maadaama aan macallimad ahay, aniga aan ka mid ahay dadka raadinaya buugaagtaan oo kale. marka wixii aan soo bartay waxaan jeclaystay inaan community ku soo celiyo oo ayagana maaragtay ay ka faa'iidaystaan. waa tahay inta badan qoraaga Soomaaliga ama af Soomaaliya wax ku qoraan ama English wax ku qoraan, marka in labadii luqadba halkan laga dheehan karo iyadoo carruur la hadlayo maxay tahay sirta ka dambaysa? sirta ka dambaysa waxay tahay waxaa jirta as a teacher markaa tahay macallimada tahay parent teacher conference baad qabanaysaa. waxaa leedahay waalidiinta iyo carruurtaada wax ma u akhrisaa, time waqti ma gelisaa. marka waalidiinta qaarkood waxay ku leeyihiin anigii baaba luqadii aqoonin maxaa cunugeyga caawiya. marka waxay ka mid tahay waxyaabaha igu dhiirigeliyey inaan Soomaali ku daro si waalidiintii inay TV-yada ilmaha ka damiyaan intaysan sariiraha aadin habeenkii oo maaragtay at least ay siiyaan 1 saac ilaa iyo 2 saacadood carruurtii ay wax ugu akhrin karaan. waxayna ka mid tahay waxyaabaha waalidiinta iyo carruurtu isugu soo dhawaan karaan inay time isu helaan ay ugu akhrin karaan Soomaaliga. waa tahay marka haddii aad wax yar ka taabato gudaha buugga maxay tahay waxyaabaha faa'iidada carruurta u leh ee ay markaasi akhrisan karaan maadaama labadii luqadba haddana aad ugu qortay? buugga waxaad ka dheehan kartaa waxyaabo badan oo soo jiidanay oo ay ka mid tahay inuu cunuga markuu iskuulka tago uu macallin u joogo oo maaragtay su'aalaha uu qabo uga jawaabi karo. haddii uu dareemayo inuu baqayo ama inuu dareemayo maaragtay inuu cabsanayo inuu maaragtay uu social emotionalkiisa uu down yahay inuu macallinka la wadaagi karo, dhihi karo maaragtay waxaan u baahanahay macallin sidaan uu la hadli karo macallinka, iyo saaxiibo inuu samaysan karo. iskuulka markuu joogo saaxiibo baa joogo la ciyaari karo, markasta dhiirigelinaya special macallimiinta. guriga haday joogaan waalidiintii baa jooga, haddii ayay noqoto, hadduu awoow noqdo, hadduu aabba noqdo ama hooyo. marka waxaan buugga ugu daray waxay tahay in labada marba ilmaha aysan keligood ahayn ee og yihiin mar walba in qof la joogo. waxaa kaloo buugga aad ka dheehan kartaa ama aad ka arki kartaa in ma aragtay dadka waaweyn la xishmeeyo lana respect gareeyo. for example qof baa bas soo koraya ama meel baad ku jirto qof weyn baa imaanaya in kursiga looga kaco lagu xishmeeyo qofkaas weyn oo maaragtay qofka yarka uu istaago. taasna way baraysaa carruurta xishmadaas respectigaas. waa tahay marka qurbaha la joogo carruurta Soomaalida qaarkood ama badankood af Soomaaliga uu ku yara adag yahay, marka in af Soomaalina uu ugu qoran yahay Englishna ugu qoran yahay markay timaado barashada afka hooyo marka laga soo tago gudaha waxa ku qoran in muhiimadda buugga barashada afka Soomaaliga laftiisa kaalin intee laga buuggaagu ka qaadan karaa? kaalin weyn bay ka qaadanaysaa maxaa yeelay wax walba waxaa lagu bilaabaa alfabeetka lagu bilaabaa iyo kicin baa lagu bilaabaa. haddii cunugii wixii aan anaga u provide gareenin ama anaga aanan u soo diyaarinin oo luqadii hooyo ah
de weligood ma baranayaan labada luqad waxa ugu soo qor waxay tahay waa inay ilmihi hadday ingiliishka arkaan ay isku dayi karaan inay soomaaligana aqriyaan ay kiciyaan ay bartaan waa ogahay hooyooyinkeena soomaaliyeed inay aad iyo aad caruurta ugu dadaalaan dugsiga geeyaan after school programming meel kasta geeyaan tan muhiimadda waxay tahay in ilmihii ay dhihi karaan waad aqrin kartaa hooyo taraygaray isku day marka waxaan rabaa in ilmaheena soomaaliga bartaan waalidiintuna aad ugula hadlaan ilmahooda guryaha markay joogaan luqadooda afkooda hooyo waa tahay gabagabadii aan soo gaarnay dabcan buugga marka laga soo tago magaca oo aad qurux badan oo kaliya matido dhiirigelina dabcan you are not alone sidoo kale coverka amaba karbadka buugga aad ayuu qurux badan yahay laftiisu maxaad ku doorato caruurtu inay akhriyaan waxa ku dhiirigelinaya marka hore markay arkaan coverka buugga taana maxaa kugu dhiirigeliyay midaas waxaa igu dhiirigeliyay buuggan coverka horta daad fiiriso hal culture kaliya ma ah waa diverse pictures waaye waxaa ku jira qof maaragtay xijaaban oo noqon karaa oo waddan kasta ka yimaada oo muslina waxaa ku jira madow baa ku jira annagaba madow waana laakiin I wanna make sure in caruurta iskuulada la dhigtaan caruur kaloo different ah waxaa ku jira caruur in la yaraa baa ku jira marka waa diverse pictureka waxaa ugu talagalay inay caruurta iskuulada markay joogaan caruur kale ee wadamo kale ka kala imaado inay saaxiibo la noqon karaan ay la yeelan karaan classroomyadana ay la joogaan mid walbana ay xishmeeyaan dhaqankiisa iyo culturekiisa sida ayaga loo rabaan in loo xishmeeyo dhaqankooda iyo culturekooda waata ugu dambeyntii waalidka Soomaaliga maxaad u jeedin lahayd ama waalidiinta Soomaalida waalidiinta Soomaaliyeed waxaa u jeedin lahaa inay markasta ku dadaalaan caruurtooda in akhriska badiyaan moor cunuga uu akhrintiisa ay badan tahay moor cunuga maskaxdiisu ay dhisanto uu smartna uu noqdo example haddaa just kaliya aad u soo qaadato habeenkii kale for example cashada marka la cuno kale ka bacdi aad tiraahdo caruurta waqtiga la seexanaysa soo dhawo inaad TV-yada ka damisaan iPad-yada telefoonada everything aad u samaysaa bakad yar ama something oo ilmuhu ay maaragtay routine u noqdo inaad xaq u dhigto that time-kii akhrinta la gaaray cunug walbana aad tiraahdo buug guriga waa yaala of course not this only buug alla buuga jeceshahay soo qabso it's time to reading ilmihi hadday bartaan inaad routiinkaas habeen kasta u samayso intaysan seexanin maskaxdooda way ku register garaysmaysaa akhrintooda moore si akhriyaan moore maskaxdooda kobacdo akhriskan ay ku fiicnaadaan ayna horumar gaaraan ay noqonaysaa watahay xabiiba aad ayaad u mahadsantahay thank you so much mahadsantahay qaar ka mid ah waalidiinta magaalada Toronto ee ka qayb galay daahfurka buugga ay qortay Xabiiba Maxamed ee You Are Not Alone ama kaligaa ma tihid ayaa xusay muhiimadda uu buuggu u leeyahay caruurtooda buuggan Xabiiba ay qortay af Soomaali English ku qoran yahay bal muhiimadda caruurteena u leeyahay iga waran waa dhawahay Xuseen xaaji walaalkay ma sha Allah Xabiiba buugga ay qortay aad u faraxsanahay ilmaha Soomaalida aad u anfacaya Englishka iyo Soomaaliga waa u baahanahay dad badan oo luqadda ay dhibaysaa jiro ilmihina af Soomaaliga dhibaayo labada dhinac waa ugu faa'iideysanaynaa waa wax lagu farxo waan soo dhaweynayaa ama santahay soo dhawow waxay ka warantaa bal buuggan Xabiiba qortay iyo muhiimadda uu leeyahay buuggan wuxuu aad u anfacaa ciyaalkeena oo ka baranaya af Soomaaliga iyo Englishka ayagoo English ku hadlaan af Soomaaliga ka baranayaan waxaan ka codsanayaa dadka qoraalka qoro inay si fiican u qoraan buugaagtan oo badan ma soo dhawow waxay ka warantaa bal buuggan iyo muhiimadiisa wallahi buuggan aad buu u fiican yahay caruurteena ugu fiican yahay labada luqadood uu ku qoran yahay aad illustrationkiisa aad buu u fiican yahay bijarada ku yaal dawayga ay u sameysay Xabiibo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa buugaag kale oo sidaan iyo si ka fiican ku soo darto more books insha Allah إذا أنك حسنت إذا تدور بوجو وعلي حبيبي محمد وقرتي إذا أنفع ما شاء الله dadka oo North America rooga afka Ingiriiska afka Soomaaliga laakiin hal shay codsade ana af my mic and until ka dar hadii ilaahi ara ma sha Allah then is going to be a variety of everybody inclusive dadkana sanka qada ma sha Allah ilaahi barakay boogana I was the first one to purchase and I'm so happy to be here and support my sister iyada ka faraxsana سينا وعلي قرب هيسير إن شاء الله. ما دام وجر جاب أنك مقدر ووالد في عروض وده وكده عورة والد في عروض فهم هذا بالعرب ممكن أنك أفكار سومالي ما دام والد في سومالي قوي عروض اللي قاعدة مقدر وكبوجا دولة جاب تسود حين عروض في والد مركب حلايا بوجا مقصود على حل آد ومباهي بدين waxaan rajaynayaa aad u caawin doona caruurta halka ku dhalatay kuna korto qurban dad badan ayaa qaba in loo baahan yahay buugaag badan oo la hadlaya caruurta kuwaas oo ku qoran luqadda Soomaaliga ama English iyo Soomaali si ay caruurta ugu fududaato fahamka iyo ka faa'iideysiga buugaagta iyaga u gaarka ah